أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعد وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم عافني في بطني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر لا إله إلا أنت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن شاء الله تعالى ما أنت أو تاريخ ذا مسلم كأيت هاي تضوّد الجماد الأول كنا أفر بغلا فرتي سدح لكن كان أيت هاي كوي تبون كبشة لبي تبنات لبضو كون يو كوي لباتنك وحنوب بالعمل دونه نوب بالعمل دونه أما كود بالعمل دونه حرمة سكول كل الدول ساعدنا هذا عن جوجنو امتحانك لبات سندوكسيات كأم امتحانك مترم كأم نصف كأم امتحانك دحسنة كها امتحان كنا هرالو يقان سوما أرضدو وحي جوجن هرو يقان وحي عصبنا وحواي دجاها نفسية دجاها نعماهي كوي هرو جوجن دجاها كعول عاديجنا وحلا جربوا إلى أكتر مهم واحد أرضك هدو أصدقين لمشيجن مؤجين
goormaa la sheegay goormay ahayd intaasna inaan la dhihin insha allahu tacaala qodobada marka 12 qodob ugu muhiimsan horena waa u taqaaneen mid alxamdulilah waa midda koowaad oo ah daahida wax la yiraahdo daahida alxamdulilah waa ka caafimaad qabnaa marka arday walba waxa laga rabaa waxa waaye inuu subaxii soo daahin waqti fiican yimaado waqtiga iskuulka laga rabo waa taqaanaa waaye taas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye waxa la yiraahdo amar diido macallinkaaga doo ku yiraahdo meeshaan ka istaag war kale uma laabna istaag doo ku yiraahdo macallinka waa inaa istaagto samcan wadaacan macallin xageen taga xagga fariiso meesha macallinku u diray danaa leedahay Soomaa dantaada wax barasho waay cilmi aan edeb lahayn maxaa waaye ka shajaratin bila thamar Soomaa waa geedan mira lahayn cilmi aan edeb lahayn cilmi aqaana akhlaaqna mili wax ma tarto macallinkaaga doo ku yiraahdo istaag hay macallin samcan wadaacan xageen taga xagga meesha macallinku u diray tag amar diido taas halkaas ka joogtaa waaye waxa la yiraahdo qishka hore uga badan Soomaa waa ina ogtaa gacantaada wax ku yaalo hadduu qish ku yaalo haddaad sample uga shaqeeyday qish wixii la yiraahdo dhuun walba oo ahaado adaa iska leh qaanada afariid iska fiiri haddii agtaada warqad taala macna warqadaas agteeda taala dheh wax walba ilaa fasalka marka la galo nadiif waay fasalka waa xaaqin yahay waa hagaajisan yahay waa miisasku waa gadisan yihiin iska fiiri adaa ka mas'uula qish marka waxa waaye dhinac uu ka yimaado adaa iska leh waaye waxa la yiraahdo oo ku xiga markaas markii meesha la galo fasalka waxa la kala qaadashada scientific hore aan balan Soomaa scientific waa inaad gurigaada ka soo qaadato scientific gurigaada ka soo qaado scientific arday laga soo qabanayo ma jiro ardayda qaar waa taqaan intay formulada ku xareeyaan ku saaf gareeyaan leen gudbi macna saxna ma scientific qof laga soo qabanayo ma leh mobile ina la ogoleen waa la ogi waaye midda kale ku xigto waxa waaye arday wuxuu ka shaqeynaa warqad asaga oo san lahayn ilaa fasalka waxa ku jira Soomaa 6 fasal 5 fasal 4 fasal ugu yaraan oo kala duwan imtixaan ku galayso oo isku shaandhaysan oo fasal walba xoogay ama cutub yar laga soo qaaday ama jab yar laga soo qaaday marka warqadda markii lagu siiyo iska eeg warqadda ina adiga leedahay fasalkaaga tahay iska hubi warqadda adaa ka mas'uula maadada galayso iska hubi waxaasna adaa laga rabaa marka warqadda qabsato shaqada lagu diro maxaa waaye inaad warqadda iska fiiriso fasalkaaga miyaa kadibna magacaaga aad maartay ku sii bilowdo waaye qodob ku xig waxa waaye midaas isla magaca ah waaye ka tagidda magaca hadaa ka tagto maadadaas kala bar waa laga goosana ogow magacaaga hadaa ka tagto maadadaas kala bar malihid dhibceeda qodobkaas waa cusub sababtoo arday waxa waaye marka hore soo galay xawle macallinka magacyadiina hal la qoro warka macallinka lama maqlaayba maagan dhagaha meel ay geysteen ardayga magaciisa ka tago imtixaanka wixii aa keenta kala bar waa ka maqan yihiin waxaan kaaga maqan yihiin lugooyada macallinka u geysay sababtoo wuxuu macallinka warqadaana soo hartay yaan siiya yaa leh yaa maqan maanta waa la isku wareeraa magacaaga hadda marka tagto walaalo magacaaga wanaagsan ku bilaaw ku qor meesha waaye midda isla magacaas la xiriirto waxa kamid ah arday qoranaya magacaan looga aqoonin ama ku jirin diiwaanka iskuulka annaga naanees kuma naqaan Soomaa magaca leedahay magaca iskuulka lagaaga yaqaan waa inaad qorato macallinka wuxuu haystaa list uu haystaa marka uu imtixaanka taa macallinka xareenayo kashfiga waxa waaye ama maartay warqadda resultiga natiijada lagu soo shubaayo macallinka waxa waa magacyo haystaa magacaas lagu yaqaan magaca ay hadaad qorato adaa iskala qaladkeeda waxyaabaha kale oo macallimiinta marka qaar imtixaanka laga cawdo waxa kamid ah qalin gaduudka wax la yiraahdo qalin gaduud imtixaan qalin gaduud mamnuuc waa ogaa hadeerba imtixaanka qalin buluug ah madow kalarada macnaha kala lagu ogolyahay qalin gaduud macallinka wax ku sax adi marka macallin ma tahay waa may ardayata magacaaga hata kuma qori kartid midda kale ayaan dhawaan ka hadalna waxa kamid ahayd buugaagta war buugtaan ka soo taga buugta marka hore ka soo taga leedo kuma karo hadhow marka imtixaanka oo dhamaadana meesha looga taga markaas marka hadhow iskuulka oo laga soo noqdo imtixaanka alle macallin buugayga maaragtay annaga buug wala leeyahay la weydiin buugaaga ama lagu leeyahay horta buugta marka adaa ka mas'uula buugaaga meesha ku xafido fasalna lama geli karo buug fasal qof buug la geli karo malaha waaye midda kale soo harta waxa waaye oo imtixaanka arday awal waxay qori jireen runo qora lugta wax u laaba beeno qora ama run iyo been ama tii ama fals waxay noqoto wixii marka wax yar ka bedela markaas uu kuleeyay saasan ka wada hadda waa la bedela Soomaa imtixaanka waa aragteen maxaa ku qoran tii ina qorto ama f labada ku qoran Soomaa ama run ama been ku qoran marka ardayga waxa laga rabaa labadaas number mid kamid ah dooran kartaa labada hadda isla doorato qalad waa ogow labada number oo t ama f hadda isla doorato ama run ama been hadda isla doorato inta waa ka gubad maxaa marka lagu daaweyn karaa waxa lagu daaweyn karaa marka hore qalin qora u isticmaal run iyo been ama goobo gelida qalin qora u isticmaal ha ku isticmaalin qalin beere warkaas war cad ma yahay hadaa qalin beere ku isticmaasho oo meesha madmadoobayso adaa yaqaan meesha geenis waaye 12 kaas qodob ardaygii fuliye waxaan isleeyahay
imtixaankiisii wuu ku guulaysanaa insha allahu tacaala asalkuna waxay tahay in ardaygu marka hore wax soo akhriyo soo ma wax walba sabab waa imtixaanku marka hore in wax soo diyaariso ta muhiim waa midda labaadna ducada waalidka iyo macalinka labadaba muhiim waa annaga waaba duceynaa intaa la gaarinaa ma duceynaa ilaahu ardaydan u fudeynana imtixaankan waa ku qornaa soo ma inuu ilaahay ku waafajiyo imtixaanka waa ku qoranta soo ma ducada macalinka marka waaba qadintaba laakiin waxaa dhiman tii dhinacaaga ama tii waalidka aad ka duceysan leedaa kaa maqan marka labadaas adaa la rabaa inaad soo xaqiijiso warkaas war cad ma yahay marka insha allahu taala marka imtixaan gashan adkaarta ku bilow allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan wa anta tajcalu alxasna idaa shi'ta sahlan ka bacdina hawsha lagu dira bilow waa kaa insha allahu tacaala intaas ardayga ka soo baxo waxaan is leeyahay waa arday wixii laga raba fuliyo waa intaas la sheegay dhagayso oo ku dhaqan marka qof walba waqtigaaga ilaasho imtixaanaad gelaysaa gurigaaga aadayso ma anjeerada ka soo tag waa kaa insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh haddana waxaa loo aadi doonaa gruub waxaa ugu hormaraya gruubka ah oo ku gelaya galaaska kooraska wiilasha ku gelaya galaaska kooraska socda arday kale lama dirin buugga bannaan ku reeb hore u gal fasalkaaga عند الامتحان تكرم أو تهان غير ما زرعت فلن تجني اليدان عند الامتحان عند الامتحان إن كنت له مستعد تزهر دنياك وتورد دوما بالأفراح عند الامتحان عند الامتحان أما من لا يستعد لا يسهر أو لا يجد غير الفشل لن يجد عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان ندمك لا لن ينفعك شغل يا هذا عقلك ندمك لا لن ينفعك شغل يا هذا عقلك عند الامتحان عند الامتحان لكن إن لم تملأه بالعلم فمن أين له أن يأتيك بها همم عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عند الامتحان تكرم أو تهان، غير ما زرعت فلن تجني اليدا. عند الامتحان عند الامتحان إن كنت له مستعد تكرم بالنجاح، تزهر دنياك وتورد دوما بالأفراح. عند الامتحان عند الامتحان أما من لا يستعد لا يسهر أو لا يجد غير الفشل لن يجد. عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان ندمك لا لن ينفعك، شغل يا هذا عقلك. ندمك لا لن ينفعك، شغل يا هذا عقلك. عند الامتحان عند الامتحان لكن إن لم تملأه بالعلم فمن أين له أن يأتيك بها همم. عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان تكرم أو تهان، غير ما زرعت فلن تجني اليدا. عند الامتحان عند الامتحان إن كنت له مستعد تكرم بالنجاح، تزهر دنياك وتورد دوما بالأفراح. عند الامتحان عند الامتحان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا
سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا عند الامتحان تكرم أو تهان غير ما زرعت فلن تجني اليدا عند الامتحان إن كنت له مستعد تكرم بالنجاح تزهر دنياك وتورد دوما بالأفراح عند الامتحان أما من لا يستعد لا يسهر أو لا يجد غير الفشل لن يجد عند الامتحان ندمك لن ينفعك شغل يا هذا عقلك ندمك لن ينفعك شغل يا هذا عقلك عند الامتحان لكن إن لم تملأه بالعلم فمن أين له أن يأتيك بها همم عند الامتحان تكرم أو تهان غير ما زرعت فلن تجني اليدا عند الامتحان إن كنت له مستعد تكرم بالنجاح تزهر دنياك وتورد دوما بالأفراح عند الامتحان تكرم أو تهان غير ما زرعت فلن تجني اليدا عند الامتحان إن كنت